ventilator shayga loogu baahida badan yahay maanta dunida. Kumanaan ayaa dharaartiiba nolosha u waaya la'aantii. Dalkeena ayaana ka mid ah duwalka caalamka ee baahida weyn u qaba helidda mishiinkan waqtigan koroonuhu laba kacleynta ku jiro. Maxamed Cadaawe isku day sabab u noqon kara badbaadada nolosha muwaadiniin badan ayuu geliyaa inta badan waqtigiisa. Mowjadii koobaad ee fayraska corona ayuu goostay inuu hal abuuro sameynta neefsiye caawiya bukaanada uu soo rito COVID-19. qalabka oxygen-ka caawinaya neefta waxaan u gudbinay qaab casri ah oo maaragtay in uu la jaan qaado xaaladaha dalka dib uga soo cusboonaaday iyadoo oo xaaladii aad ay isu sii bedeshay oo dadka ay ka caawinayaan maxaa la yiraahdaa oxygen la'aan sida aad wada arkaysaan qalabku wuxuu saameeyay dalka oo dhan waxaan u sii gudubnay hab casri ah oo qalabka in loo isticmaalo qaab digital ah oo lala socdo monitoring iyo qaabkii iyo wax walba meesha ay marayeen iyadoo lala soconayo. magaalada Maxamed ku nool yahay ee Muqdisho dhakhaatiirtu waxay ka dayrinayaan xawliga fayrasku uu ku faafayo iyo tirada sii kordhaysa ee bukaanada uu soo ridanayo. mishiinada la heli karo ayaana gabaabsi ka halkan. hal abuurka Maxamed ayaana loo arkaa xal wax looga qaban karo xaaladan argagaxa leh. markii aan ka hadlayno COVID-19 situationka aan ku sugannahay beledkeena iyo wadankeena run ahaantii qalabkan waa qalab casri ah juhdi badan iyo xoog badan baajinayo howl badan u qabanayo qofkii bukaanka. ku dhawaad hal sano ayuu Maxamed Cadaawe dagaal kula jiray corona virus si lamid ah howlwadeenada caafimaadka ee hospitalka Martini ay ula dagaaleen isla markaana ugu dadaaleen sidii corona virus ay wadanka uga badbaadin lahaayeen. mishiinkan oo si riyaa ku soo bilowday ayaa dhowr heer soo maray ugu dambeynna waxa uu marayaa si lamid ah kuwa dunida laga isticmaalo kaasi oo badbaadin kara qof qaba corona virus. dadaalkiisu ma yara oo mishiino badan ayuu kaligii farsameeyay balse mawda deeqin bukaanadii u baahnaa. duruufaha dhaqaale ayaana u saamixi waayay inuu soo saaro tiro intaasi ka badan. waxaan mid Soomaaliyeed u sheegayaa qof waliba hadduu gado hal oxygen boqol oxygen waa qiimo aad u yar markii la fiiriyo lacagta nooga baxaysa. aniga waxaan ku deeqayaa intii awoodeeda ah maskaxdeeda iyo aqoonteeda aan ku deeqnaa idinkana si lamid ah waxa la yiraahdaa qiimaha uu ku kacaya ala oxygen. Dr. Maxamed Cabdullaahi Gaaldiid agaasimaha cusbitaalka Family Care oo la wareegay mishiinkan ayaana la wadaagay in neefsiyahani yahay mid casri ah oo bukaanada u sahlaya inay si fudud ku neefsadaan laakiin loo baahan yahay in hal abuuraha laga gacan siiyo sidii uu wax soo saarkiisa u kordhin lahaa. qofkeen annaga naga mid ah xaaladda baahida aan ku jirna anagoo og qof markuu soo sameeyo wax cusub waxaan u baahanahay bulshada qaybadeeda kala duwan culumadii ganacsatadii isbitaaladii dhakhaatiirtii kulli ganacsatada kulli inay garab istaagaan wiilkan dhalinyarada ay ku garab istaagaan waxa uu bilaabay iyo mujtamaciisa waxa uu la garab istaagayo. fayraska corona oo marka la soo rogaal celiyay ayaa ku faafay Soomaaliya waxaana wasaaradda caafimaadku soo saartay wacyigelin iyo digniino ay ku sheegayso halista cudurkan iyadoo cusbitaaladu ay ka cabanayaan neefsiyaha oo ku yar iyo tirada oo sii kordhaysa. Maxamed Muuse Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho.